maanta waxaan xaggan ku qabanay casuumad aan u sameynay macluumadeeda qaaliga ah Elif Ustamir waxaan ugu qabanay maqaaxida Soomaalidu ay leedahay ku taal xaafadda Asarteebe la yiraahdo African Sofrasi runtii meheradan adeegeeda aad baan u bogaadinaa haddaan nahay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata qaybta wadanka Turkiga khaasatan magaalada Ankara adeegay maqaaxida bixiso runtii aad baan ugu badinay waa adeegyo aad u kala duwan haday noqoto cuntooyin kala duwan haday noqoto cuntadii Soomaalida cuntooyinkii Turkiga cuntooyinkii Carabta cuntooyin aad u wanaagsan runtii aad ugu bognay iyo waliba cuntadii khaaska ah aan aad ka jecelayn cuntadii Itoobiyaanka ayaa iyadana halkan lagu soo bandhigay runtii maqaaxidan adeegeedii aad u wanaagsan waa adeeg ballaaran haday noqoto qaybta hoolashan khaaska ah kan aan maanta anagu xafladda ku qabanay oo kale ee lagu talagalay cuntooyinka macnaha casuumadaha oo kale waxay kale oo leedahay hoolal kale oo lagu talagalay kuwii aroosyada kuwii shirarka iyo kuwii kale ee ahaa lagu talagalay in lagu qabto waxyaalaha waaweyn ee aan dhihi karna sida Soomaalida muxaadirooyinkeena oo kale haday noqoto xafladihii dhaqanka oo kale ayay maqaaxidu leedahay ka macaamiil ahaana aad baan u bogaadinaa maqaaxida African Sofrasi ganacsatada Soomaaliyeed ka hirgeliyeen magaalada Ankara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan joognaa maqaaxida African Sofrasi ku taala magaalada Ankara aniga iyo asxaabteeda ardaydeedii taasoo aan ku casuumeynay macluumadeeda oo ku tusinay cunto Soomaaliga runtii waxaan kala kulannay hab dhaqan aad u wanaagsan aad baan u soo dhaweeyay si aan filaynay si ka badan walano marti qaaday aad iyo aad baan mahad celinaya waxaan leeyahay dadweynaha ku nool magaalada Ankara ama Turki in ay soo tijaabiyaan iyaguna cuntada maanta aad u dhacnay iyo hab dhaqanka wanaagsan aad iyo aad bay u mahadsanyihiin tooyinka lanoo keenay maanta waxaa ka mid ah sambuus waxaad ka heli karaysaa cunto xabashi canjeelo bariisyadii aad u kala duwan baastada cuntadeennii Soomaaliga ahayd ee naqaanay oo badan waxaad ka heli kartaa Turki waxaad ka heli kartaa Carabi waxaad ka heli kartaa Itoobiyaan waxaad ka heli kartaa Soomaali wax kasta aad u baahato waad ka heli kartaa dhammaan dadweynuhu ku soo dhawaan karaan aad iyo aad mahadsantihiin. Merhaba, benim adım Elif. Türkçe öğretmeniyim. Öğrencilerim sayesinde Afrika sofrasına geldim ve yemekler çok güzel. Şu ana kadar en favorim sambusa ve salata oldu ama Liban sağ olsun mahvetti yemeği. Her şey çok güzel, teşekkür ederim. Gelmenizi tavsiye ediyorum.